fanka dhalinyarada fanaaniinta in ay gumeysi ku jiraan intooda badan gumeysi idinku waxay idin soo gudbiyaan farxada idin la wadaagaan heesa idin soo gudbiyaan laakiin xaqiiqada marka idin kala hadlo dhalinyarada gumeysi intooda badan ku jiraan waa loo caagjuleeyaa qaarkood video waa laga hayaa qaarkood wax walba lagu sameeyaa qaarkood dad loo adeegsadaa raga loo adeegsadaa fanaaniinta Soomaaliya anigu markaan fanaan ahay marar badan baa ciishooday marar badan baa dhibaato ii geystay marar badan baa maxaan ku raadaay hadal afkaygu soo qabo waay fanaaniinta dhan saas u ciishoonay maamulku waxaad aragtay heesa idin soo qaadaan in farxada idin wadaaga laakiin calooshooda waxa ku jirta ciil iyo maalin ya qof marmarka qaar waxa dhacdo qof dhibaatadaadii ka hadlo oo maalin uu qof uga sheekeeyay ama ogaay wad ku nafisaysaa fanaaniintu ma hadlaan sharaf iyo shacab iyo kaalum darteed iyagu aamusan laakiin inay aamusan xaq uma laha qalb waabay anagu taas baa ku qaldaneen maanta saasoo fanaanku waxa loo gaarsiiyay inuu social media soo fadhiisto awoogiis oo training-kii wax ka sameeyay ayaa fiican laakiin maxay ku taala Soomaali fanaaniintoodu waa wada baqaya sababtoo adinka waa Soomaali shacabka adinka waa sababtoo u baqayaan wax kale ma waxay u baqayaan يعني لي فنان هبل ساسوها يعني لي كانوا ها يعني لي فنان هبل وعيتمه هادرتان على كل حال مهمة تسوي فريسة وحياتها وأنا إنه تصيا بقصة لبرجيسنا واتقانان وصدري وحاوي حياة كاجر ووعيا وحلية هي وحيابة وتنحلي هذا قابين هي فيديو وكاتوبيا كانوا دوبيا ماله خاصة ماهرش تنك رجل جمر ونقص عمريا مفهمت سو مالي محمد وحاب الشجاعة أنا قررت أنك بقايا ملها يوتيوب كمان تدوح وذا كبحه فيديو يوتيوب وح أقبلنا ملهن وحاول أنا ونور هاي dad baa ka dhashay Soomaali Maxamed ka dhashay 20 jir ahay mar walba jaanis ah haysta aniga laakiin waxa inii sheegaya dhalinyarada Soomaaliyeed waliba fanka dhalinyarada fanaaniinta in ay gumeysi ku jiraan intooda badan gumeysi idinku waxay idin soo gudbiyaan farxada idin la wadaagaan heesa idin soo gudbiyaan laakiin xaqiiqada marka idin kala hadlo dhalinyarada gumeysi intooda badan ku jiraan waa loo caagjuleeyaa qaarkood video waa laga hayaa qaarkood wax walba lagu sameeyaa qaarkood dad loo adeegsadaa raga loo adeegsadaa ninkina ilaa ay hadeertaan waxa dadku daba taagan yihiin sheegaan waxay tahay muxuu idin daba taagan yahay sharma muxuu uga soo hadlay dadku waxay isleeyihiin hadeer sharci sheekada weeb aamuste muxuu sharma iyo hadana uga soo hadlay waxa waaye wax uga soo hadlay dadku kala feeso naagu dhalay wali cagto noo saaraya waxa waaye hadana annaga nama soo aadi karo oo nimadiisa annaga naguma soo aadayo nooguma cag jugleenayo meelo hoose iyo gabdhihii iyo xaafadihii iyo familkii nagala maraaya dagaalada ciifeed cidiya hoosteedu nagala digraaya waxa inii sheegaa aniga hadeertaan deeq darajo walaalkayga waa isla joognaa waxa waaye ilaa iyo meel oo waxa waaye ilaa iyo familkiis u baqaan heerkaas soo maraaya oo la yiraahdaa maxaa la yiraahdaa inta loo idin diraaya oo aniga xataa la idhaa waa inta lagu diraya waxa waaye annagoo dalkeena joogno dhalinyaro Soomaaliyeed ah oo dalkeena joogno oo anoo dalkeena joogno dhibaatada jirto dalkeena loo ogyahay horumar ku sameeyayno dad hadana xagga joogo oo qurbahaas ku nool oo nabad ku nool oo free ku nool waxay nagu la dhaqmayaan waxyaabo ayna u dul qaadan karin fanaaniinta Soomaaliyeed qaarkood inta badan hore ugu soo dul qaateen waxa idin sheegay aniga qof bini aadan aan ka baqaayo ma jiro ciilka iyo ilantana waxa ay keenaa waxay tahay aniga hadii aad adkaysto oo nimadeeda aad adkaysto oo wuxuu yahay aad soo waxa meel aan ka damqanayo rag ama dhalinyaro ama gabdho iyo dumar iyo xaqooda naga soo maraya iyo meel aanan xal yiraahdaa dad aan hadhoon eed aniga tusano koraysa oo dartiina wax walba noo gaaraan leey Soomaali Maxamed aniga waxaan rabaa in ay ogaato dib زائد فنانين Soomaaliyeed aniga u hadlay afka fanaaniintu ku hadlay waliba kuwa dalka ku sugan dhibaato زائد naga heesato xagaan iyo maxal yiraahdaa dadkan ku sugan dhankaas maxal yaa qurbaha hadalka aan ku dheeraanaynin Soomaali Maxamed waxa waaye waa ka raali gelinaya xanaaqi iyo kulaalka iyo hadalka ku hadlay
waxaa waaye arrinkaa inaa ogaataan arrinkaas meesha uu maraayo ninkaana uusan naga dabaharin cagta uu noo saaray haddana waxa aan kasii ciisoonaya waxay tahay afka uu ku hadlaya xaniyihiisa maaha ninnimadiisa maaha raganimadiisa maaha mar walbo aan ninkaas inaa ka hortaga damco waxaa isoo hor istaagayo أحمد رشيد waxaa isoo hor istaagay Axmed Rashiid ninka noogu yiilay ninka dhalinyarada Soomaaliyeed waxa ay uga baqaysa ma aqaan dhalinyarada Soomaaliyeed oo dhan ay ka wada kaadanayso ninkaas oo naga soo maray ninkaas markuu awoodi waayo deeq darajo cilmi kuma dhamo wallahi oo billahi oo talaa xabad cilmi ah oo intaas dhigin isku dhameen awood waxa uu yeelan in YouTube-kiisa hawada ka saarno uu naga soo weerarayo uu awood u yeesay deeq darajo uu ka daba tagay waxba uu naga qaadi waa asiga ilmaha xunka uu wato asiga waxa basabeeyo xaniya ma qol meeshaas ugu jira dadaa waxay ugu yeelayaan afaar qabiilka marka qof ugu yeelayso waa qabiilkaaga marka lagu qaldamo qofka qabiil loogu yeelaya laakiin inaan qabiil lahayn qabiil wax oogeen raganimo aan lahayn Soomaalinimo aan ku jirin oo waxba aan tareenin afkaas faaq ka haayo oo isku diraahla qabiil ugu yeelaysaan waxa waaye waxa loo danqadaa qofka qabiil wax ka yaqaan qabiil oo waxba ka aqoonin nin rag oo waxba ka aqoonin heer oo waxba ka aqoonin waxa waaye dhalinyarada Soomaaliyeed waxba ka aqoonin ninkaas noo jabiyay oo la yiraahdo Axmed Rashiid gacanta noo galiyay waxa haddana uma jabin oo macnaha waxa la oynaa aan la cishoona ma YouTube-keegi in macnaha gacanta uu ku haysto ama wali la xukum YouTube-keegi ana gacanta ku haysto xitaa deeqdari jaad gacanta kuma hayo akoontigeega ana gacanta ku haysto YouTube-keegi ana gacanta ku haysto waxa walba ana gacanta ku haysto laakiin wali aga jugleen iyo dadkii deeqdari ilaa hadda waxa way uu ka soo tagay noloshiisii wixii u socdo horumarkiisii meeshu joogo ka soo tagay waxa way xayaat kaajal ayaduna sidoo kale gabadha way ka soo tagtay waxa xamar ay ku sugan tahay وأوجس صوت بتجو وحاول يضبطه وهذا وخبطه. dhalinyarada fanaaniinta in ay gumeesi ku jiraan intooda badan gumeesi idinku waxay idin soo gudbiyaan farxada idin la wadaagaan heesa idin soo gudbiyaan laakiin xaqiiqada marka idin kala hadlo dhalinyarada gumeesi intooda badan ku jiraan waa loo caag jugleeyaa qaarkood video waa laga hayaa qaarkood wax walba lagu sameeyaa fanaaniinta oo dhan saas u ciishoon maamul waxaad aragtay heesa idin soo qaadaan iyo farxada idin la wadaagaan laakiin calooshooda waxa ku jirta ciil iyo maalin ya qof marmarka qaar waxa dhacdo qof dhibaatadaadii ka hadlo oo maalin uu qof uga sheekeeyay ama ogaay wad ku nafisaysaa fanaaniintu ma hadlaan sharaf iyo shacabku iyo kaalum darteed ay u aamusaan laakiin inay aamusaan xaq uma laha qalb waabay anagu taas baa ku qaldaneen maalintii saasoo fanaan waxa loo gaarsiiyay inuu social media soo fadhiisto awoogiis oo tiriyay ninkii wax ka sameeyay ayaa fiican laakiin maxay ku taalaa Soomaali fanaaniintu waa wada baqaya sababtoo adinka waa Soomaali shacabka adinka waa